بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xaalka Itoobiya. Itoobiya waa wadan aan walaalanahay, waa wadan guri u ah oo hoy u ah 10 milyan oo Soomaali ah. wadankan qaybtan Soomaaliya anaga aan ku leenahay Somali State la yiraahdo anaga iskale. markaa Itoobiya waa dhulkeeni. maanta Itoobiya waxaa haysta nin Oromo ah oo Oromada waxaan isleenahay reer Kushite. xilligii waxaa la joogaa Soomaalidu ay arrinkan ka faa'iideysan lahayd oo loo arki lahaa inaysan Itoobiya cadow ahayn ee ay yihiin walaalahayo. maantana aan u baahannahay Itoobiyana aan u aragno inay tahay dalkaygii labaad inay tahay. aan u baahannahay inaan ka faa'iideysano arrinkaas. markaad u aragtid Itoobiya dalkaaga inay tahay, waxaad isku dayeysaa inaad ka qayb ka noqotid dowladda, qayb inaad ka noqotid wasiirada, qayb inaad ka noqotid ciidanka, qayb inaad ka noqotid madaxtinimada, qayb inaad ka noqotid inay Soomaalidu ay kor u qaadaan dalkan Itoobiya. xilligii Itoobiya loo arki lahaa inay waddankaygii tahay baa la soo gaaray. dadka reer Itoobiyana waa dad walaalo aan nahay. marka waxaan u baahannahay inaan arrinkaa wax ka badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.